guddida khayraadka dabiiciga ah deegaanka wax soo saarka iyo tamarta ee golaha wakiilada Somaliland ayaa magaalada Burco ku qabtay kulanka wadatashiga wax ka bedelka iyo kaabista xeerka korontada Somaliland ee xeer lambar 2018 waxaana kulankani ka qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo macdanta, agaasimaha komishiga tamarta, xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada, gudoomiyaha degmada Burco, barasabka gobolka Togdheer, taliyaha qaybta booliiska, salaadiin cuqaal, waxgarad, aqoon-yahan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, haweenka iyo dhalinyarada. waxaa dhammaanba mudanayaashii munaasabadaasi ka hadlay ay si weyn ugu dheeraadeen muhiimadda ay leedahay wax ka beddelka iyo kaabista xeerka korontada ee Somaliland. waxa weeyaan dalku inuu helo energy inuu helo waa waajib bay ku tahay xukuumadda. taas daraaddeed iyadoo ay ka duulayaan xildhibaanadu waajibaadkii saarnaa waxa ay soo diyaariyeen shuruuc dii lagu dhaqaayay tamarta lagu dhaqaayay. waa soo dhawaynaynaa runtii waa arrin aad iyo aad qiimo u leh in arrintaa dee sida ay u shaqaynayso loo baadho. waxaan leeyahay sidii loo go'aamiyey qoladan shirkadahana waxaan ka codsanaynaa inaydu dadka u adeegtaan oo si wacan ugu adeegtaan oo quwaddiinu markaad midowdo aydun maxay tahay dadka dhibtan iyo culayskan saaran ka dulqaadaan oo wax fudud oo dadku iska bixin karo. arrinka leydh jaban iyo biyo jaban ayaan ku talinaya. wasaarad walba magac bay leedahay. wasaarad walba waxaan ku ballamaynaa ama tamar ha ahaato ama daakhiliyad ha ahaato ama ha ahaato nooc kasta oo wasaarada ama inay iyadu ka daba gasho waxeedoo ka shaqaysa. mas-uuliyadduna waxay xaq u leedahay dowladda. shacabka cashuur baa laga qaadaa inay leer jaban helaan xaq way u leeyihiin. marka waxaa oran lahaa xildhibaanada xeerka haya dee xeerku waa wanaagsan yahay hadduu shacabka u danaynayo. ujeeddada ka dambaysa xeerkani waa inuu u faa'iideeyo dalka, dadka iyo ganacsatada intaba. ma aha mid ama ganacsatada garabka saaraya ama haddii eebba ku roon yahay dadweynaha dhinaca saarayo ganacsatada culayska saaraya, labadoodaba uu u dhexeeya. guddidu iyadoo ka duulaysa tilmaamta guud ee golaha uu leeyahay waxay maanta halkan isugu yeedhay maad aragtay kasoo qaybgalayaasha kulankan in ay u soo bandhigto isla markaana ay la socodsiiso in xeerka tamarta korontada oo ahaa xeer hore oo dhaqangal ah in wax ka beddel iyo kaabis lagu sameeyey. waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu maaragtay kii khilaafku naga dhammaan lahaa uu noqdo. waxaan rajaynayaa inuu maxsuul wanaagsan aynu ka helno. golaha wakiiladu isagoo waajibaadka xeerku siiyey ee halkan laga sheegayna fulinaya doonayana inuu dhammaan ka qayb dadka daneeyaasha ay dawladdu ka mid tahay ayuu u baahan yahay maanta inaanu helno raayadiina iyo waxa ka qabtaan. runtii maanta markaa wax ka beddelkii kaabista aynu halkan joognaa Hargeysa uga soo baxnay inaanu rayigiina qaadano, taladiina qaadano, annaguna aan wax ku darro, golaha la wadaagno oo sidaa ku soo noqdo xeer wixii bilaadanku iska dicif wuxoodii wax dhadhaweeya oo ku dhaqanno. xeerkan wuxuu quseeyaa shacabka Somaliland ama khataraha ku saabsan korontada loo sheego ama ka hadlo ama korontada la jabiyo. waxa weeye waa kala hagihii xukuumadda iyo shacabka iyo dhammaan shacabka Somaliland oo dhan. waxaan rajaynayaa xeerkani inuu noqdo xeer si cad u qeexaya awoodaha iyo waajibaadka cid kasta oo sektarkan enerjiga ku jirta, aasaaska hay'adaha dowladda oo ah xeerka ay ku shaqaynayeen, shirkadaha korontada iyo bulshada isku cadaalad sameynaya oo qof walba xaqa u leeyahay iyo waajibaadka dhinaciisa ku horto. ujeeddooyinka ugu waaweyn xeerkan waxaa ka mid ah ilaalinta xuquuqda macaamiisha iyo adeeg bixiyaha, dejinta halbeegyada adeega tamarta Somaliland iyo tayeyntiisa, kuwaas oo ay ka dhalanayso isla xisaabtan ay gacanta ku hayaan xoojinta aynu ku sameynay komishanka tamarta jamhuuriyadda Somaliland. maanta Burco waxaan u nimi waa qorshahaas
xeerkaasoo buddig u noqon doona sida ay Soomaaliland ku heli doonto tamar jaban maxamed mataan gabalax wararka telefishinka Honkebel